سائلك شانية طبناد وحوليه هي شيخ ويل أيا قبر للروري يعني لا تجيبوا كوضا أما لبحي والدكي قبر مركي لو شيء ويديدين قبر دينا بحيان وأنا لو عليي والدك قبر دودي قبر دي متكدب وحكو صباحي أور كاسي محونا قنية حل كيسو الشيخ gabadh waalidkeed horta lagala rooray oo lagala tagay asagii ay la joogto kadibna meelaha lala aaday ma mehersanto naska xadiidka nabiga sida ku cad salawaatu rabbi wasalaamu alayhi quraanka daahirkiisuna uu ku tusayaa la nikaha illa biwaliyin xadiidka Musa al-Ash'ari أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل 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 حديث عائشة مركا ما أصح يقول كاسي هدي قبرنا للتقي والد كيدنا الديد اللي سوء علي وقصوبح أور قصوبح وحلقها الله يوحوي قور ما أصح مس ما أصح ما لكن المها الصوبح يمحويها هو لا بانوك القاضينا gabadhaasi isagoo oon wadaad loo geynin oo wax meher u eg aan lagu sameeynin haduu u galmooday ilmuhu waa garac ilmo sharciya ma aha laana wax qiilo loo heli karo oo loogu raadin karayo wax loogu heli karayo ma jiro haweenaan xarigna ku haynin حلالنا آذن وهيسنين مركض وقلمونيس شبهنا أين تشرين أو سعد أدو جزيني ستي المها سوى المقرع والمحرق لان كل شيء واحد هدي ويل كمركو قبرنا لتجي وحلو ما تشاتشلي وحلو مع تشلي ووذا دوح مع تشلي يشرو ملهاس وحيرة فرسمية وحبان قوريني نادا قبرنا الله صبح dad badan oo caamana waxay u haystaan inay waxay sameeyaan oo wax ku xalaaloobayaan haduu wadaad wax u farsameeyay oo uu markaas wiilku gabadha markuu u galmoonay islaha waa xaaskaaga iyo xalaal bay ku tahay sidaana ay ku uurku ku yimid ilmuhu ilmo sharci guurkuna ma jiro nikaahuna ma jiro ilmuhuna waa sharci see ku iimaanaysa قلب دويد بان دين شرح ما حسوستان ساسوي بمعنى وحوي المها إن للسجو نصب لو سجو أو قرعني ماذا لقى إلاليه وحلو الرادين يا وحيرو الشبهاء لو الرادين وحين كوصل يسنتها أبها المها دلي أما بيها لها هدور رميسية مركو أقل موني إنه حلال أطهي إنت سا وحي كوفي لنتهي إنه المها أبتره له أو شرع له haddii markuu u galmoonayay uu rumaysnaa inuu zina iyo xumaan ku sameeyo oo san shubha ku jirinna marka ilmuhu waa garac waxba loo heli maayo marka labadaas loo kala qaadaya sidaas daraadeed baa dad badan oo dhalinyarada ah markay xogaa ay farsamadu ka halowdo oo isku simbirraxdaan waxay ku marmarsoodaan Allahu a'lam meher xad baan sameeynay bay dhahan iyagii Allahood laakiin hadday sheegtaan ilmihi oon aabihi waa loo sugi ayagu ma been bay sheegeen ma rub bay sheegeen iyagii Allahood laakiin ilmuhu in wax loo helo oo la badbaadiyo garacnimada laga badbaadiyo waa maqsad sharci ah laakiin waa in wuxuu la helo la cuskan karo wallahu a'lam barakallahu fiik wa jazakallahu